bismillaahi araxmaani araxiim taariikhdii dagaalkii la foole ee dhex maray talyaaniga iyo soomaalida 25 Noofembar sanadkii 1896 qaybta 3 dadka Soomaaliyeed waxay degan dalka Afrika jacalkiisa bari. qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad ee taariikhda dagaalkii la foole waxaan ku soo faahfaahinay waxyaabihii sababay dagaalka inta aanan u gudagelin maalintii dagaalka iyo wixii kala qabsaday talyaaniga iyo soomaalida. qaybtan saddexaad waxaan kaga hadli doonaa dowrkii uu ka ciyaaray Antonio Sheki oo ahaa ninkii kusoo hogaamiyey dowladda talyaaniga dhulka soomaalida, iyo weliba dadaalkii uu u galay isballaarintii talyaaniga ee Banaadir iyo jawaabtii ay ka bixiyeen soomaalidii ku dhaqnayd gobolka Banaadir isballaarintii uu waday talyaaniga. sidaan hore usoo sheegnay, Antonio Sheki ayaa hormuud ka ahaa isballaarinta talyaaniga ee Soomaaliya, waxaana loo xilsaaray inuu hogaamiyo howlgalka sahanka ahaa, sababta oo ah waayihiisii hore iyo sumcaddii uu ku lahaa sahminta Afrika, iyo in uu ahaa taageeraha ugu weyn ee isballaarinta talyaaniga ee bariga Afrika. Antonio Sheki waxa uu ku dhashay magaalada Pesaro oo ku taal badda Adriyaatiga ee dalka Talyaaniga 29 bishii Janaayo sanadkii 1849. wuxuu ahaa kabtan badmaax ah ama marino oo u shaqeeya shirkadda Robitino. wuxuu ku sugnaa Saylac sanadkii 1876 markii uu fursad u helay inuu xiriir la yeesho Orazio Antinori oo hogaaminayay sahan ku wajahnaa harooyinka waaweyn ee Afrika. sanadkii 1877 waxa uu suurooday inuu ku biiro Sebastiani Martini Bernardi, kaas oo u socday inuu u tago Antinori oo ku sugnaa gobolka Shawa ee Ethiopia. kadib markuu dhaawac soo gaaray Antinori isaga oo ugaarsanayo iyo soo laabashadii Martini Bernardi, Sheki iyo saaxiibkiis Giovanni Chiarini ayaa u sii watay sahankooda dhanka gobolka Kaffa ee Ethiopia. laakiin waxaa qabtay oo xabsiga dhigay boqortooyadii Gira oo ay xukumaysay boqoradii Gennafa. boqortooyadaas oo ahayd muslim oo ka dhisnayd dhulka qowmiyadda Guraagada, halkaasoo ay ku xirnaayeen muddo 2 sano ah, waxaana lagu tuhunsanaa inay u basaasayeen boqor Minilik. sanadkii 1879 Chiarini waxa uu ku geeriyooday xabsiga bishii Oktoobar 5, waxaana arrintaas kaga soo warramay warbixintiisii saaxiibkiis Antonio Sheki. wuxuuna sheegay sababta uu u geeriyooday Chiarini in ay ahayd xanuun daran oo dhanka xiidmaha caloosha ah, wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay in la sumeeyey. Sheki ugu dambeyntii waa la soo daayay. sanadkii 1880 ayuu dib ugu noqday Itaaliya, laakiin sanadkii 1885 waxa uu ka qayb qaatay duulaankii military ee Musawac oo uu hogaaminayay Colonello Tancredi Saletta. intaa kadib waxa uu bilaabay halgankiisii uu ku raadinayay gumaysiga Soomaaliya ee uu nasiib darrada kula ballansanaa. bishii Abriil 15 sanadkii 1896 magacyada shirkadaha u sharaxnaa in midood ay la wareegto maamulka Banaadir ayaa inta baarlamaanku ka ansixinayo iyo inta la xasilinayo xaaladda deegaanka ayaa maamulka gobolka Banaadir oo ay gacanta ku haysay shirkadda Filonardi waxaa si ku meel gaar ahaan ah ula wareegay dowladda Talyaaniga, iyada oo loo magacaabay qunsulka Talyaaniga ee Zanzibar Captain Antonio Sheki oo sidaas ku noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee Banaadir. wuxuu yimid Muqdisho November 15 isla sanadka 1896 isaga oo saaran markabka Volturno. Signor Sheki waxaa horyiil in uu xalliyo mashaakilo uu midba midka kale ka daran yahay. waa marka hore wuxuu ogaaday in xiriirka ka dhexeeya dadka deegaanka iyo Talyaanigu uu qarka u saaran yahay inuu burburo, iyo xaaladda degmada Luuq oo aad u kacsanayd, walow Vittoria Bottego iyo Ugo Farandi ay dhiseen xero military iyo dhufays adag, laakiin lagu difaaco 90 qori oo keliya. iyo tan kale oo ahayd bishii Oktoobar sanadkii 1896
oo ay soo baxeen warar sheegaya in dabley xabashi ah ay ku soo foolan yihiin degmada luuq, taasoo halka talyaanigu uu u haysto luuq inay tahay dhul Soomaaliyeed. xabashida gaar ahaan qowmiyadda Amxaarada waxay u haysteen inay iyagu qabsadeen hadda ka hor, taa darteedna ay iyagu leeyihiin. taas marka lagu daro isqaadqaadka xabashida oo meel ay isdhigaan la'aa kadib guushii ay ka heleen talyaaniga dagaalkii Adwa ee bishii Maarso 1 isla sanadka 1896, taa oo ahayd markii ugu horreysay ee dad madow ay jebiyaan qowmiyad reer Yurub ah. Vincenzo Filonardi waxa uu garwaaqsaday dhibaatooyinka uu ku lug yeeshay, wuxuuna aqbalay in dowladda ay la wareegto maamulka Banaadir, wuuna ku faraxsanaa inuu ku noqdo Itaaliya. runtii xaalka sidaa wuu ka gedisnaa marka aan ka hadalno turjubaankiisii iyo gacanyarihiisii carabka ahaa oo uu magaciisu ahaa Abubakar bin Cawad, oo uu arkayay arrintaa saameyntiisii oo hawada raacday. halkaa marka ay marayso, sheeki oo laga yaabo inuu ka walaacsan yahay Amxaarada ayaa ka soo degay xeebta, wuxuuna damacsanaa inuu booqdo suldaanka Galadi, Suldaan Cismaan ee dooxada Webi Shabeelle, si uu ugula heshiiyo falcelin wadajir ah oo ku aadan Amxaarada. tani waa malaawaalka lagu qoray dagaalkii Lafoole kadib warbixintii uu diyaariyey Emilio Dulio oo ahaa guddoomiyaha magaalada Muqdisho. laakiin waa malaawaal ay adag tahay in la rumaysto marka la eego masaafada u dhaxayso luuq iyo xeebta. sida cad, ujeeddada sahanka sheeki waxay ahayd sahmin dhulka gudaha ah ee Banaadir, iyada oo taas loo cuskan karo xaqiiqada ah in suldaanka Galadi uu siyaasad furfuran kula dhaqmayay Talyaaniga. marka la eego yaraanta ciidanka galbinayay sahanka iyo dhowr arrimood ee kale, waxay Talyaanigu aad isugu canaanteen inay jirtay taxadar la'aan aad u daran, waqti kala guur ah oo u dhexeeyay laba shirkadood oo ganacsi iyo askarta xeryaha xeebaha ah jooga oo aad u yaraa. marka waxaa muuqatay in ujeeddada sahanka ay ahayd xoojinta saaxiibtinimada iyo la kulanka suldaanka Galadi. magaca Galadi waa magaca dhulka iyo dadka degan labadaba. ujeeddada labaadna waxay ahayd sahminta waqooyi Webi Shabeelle si loo ogaado dalagyada ka bixi kara. waxay ahayd mashruuc uu maanka ku hayay sheeki ilaa iyo bishii Sebteembar oo uu kala hadlay taliye Bonjardini oo ahaa kabtanka markabka Volturno. sidoo kale taliyaha Staffeto Ferdinando Mefi oo ku jiray howlgal sahamin ah wuxuu dhowaan booqday Mareeg oo ku taal meel u dhaxaysa Muqdisho iyo Hobyo, waxayna qorsheynayeen inay ilaalo ka qabtaan dooxada Webi Shabeelle. waa la ogaa in beryahaas uu suldaanka dibadda uga maqnaa magaalada Afgooye, waxaana maamulka si kumeel gaar ah u sii hayay suldaanka adeerkiis, kaas oo uu Talyaanigu ka codsaday booqashada. suldaanka adeerkiis wuxuu ahaa mid aad uga cagajiidayay booqashada. suldaanka sababta uu u maqnaa waxaa laga yaabaa in ay ahayd wacdaan oo isbahaysi kula jiray Galadi, uu aad uga soo horjeeday in wax xiriir ah lala yeesho gaalka. suldaankana wuxuu jeclaa in uu gorgortan la galo Talyaaniga, taas oo xiisad ka dhex dhalisay isbahaysiga. laakiin sheeki waxa uu ku qancay xaqiiqada ah in xiriirka dadka deegaanka iyo Talyaaniga uu ku salaysan yahay hadda nabad iyo saaxiibtinimo, wuxuuna sii watay go-aankiisii ahaa abaabulka sahanka. waxa uu rumaysnaa sheeki in safarka uu ahaa tegid iyo soo noqosho aan wax dhibihii ka imaan karin. arrintaa waxaa hubantideeda siiyey xitaa qaar ka mid ah reer Yurubkii deganaa dhulka, sida Signor Giacomo Trevis, wakiilkii sharikadda Filonardi, kaas oo u damaanad qaaday in dadka reer Muqdisho ay yihiin dad dabci ahaan degan. laakiinse waxay ahayd in la xusuusto tiro dhacdooyin halis ah inay dhaceen iyo in qabaa'ilka degan tuulooyinka gudaha ah ay colaad u hayeen shisheeyaha, iyo dadka degan magaalooyinka oo iyagu ku sifoobay inay jeclaayeen inay soo dhoweeyaan shisheeyaha. isaga oo ka duulayo sahmadiisii hore iyo xamaasad aan sal iyo raad toona lahayn ee uu qabay deegaanka, sheeki waxaa laga furfuri waayey ilayn wadkiisaa ku galaye fikirka ah inay muhiim tahay in uu webiga Jubba fure u yahay barnaamij gumaysi oo aad u weyn. waa siduu islahaaye mar haddii aynu si dhab ah u ogaano in webiga Jubba uu yahay mid ay maraakiibtu maaxi karaan, waxaa hubaal ah inuu noqon doono halbowle muhiim u ah dhoofinta bunka gobolka Kaafa iyo dhulka hareerihiisa ah. hadda Talyaanigu waxa uu haystaa Masawac. waxaa suurtagal ah inuu Talyaanigu lahaanshihiisa u fidiyo dhanka koofureed ee webiga Jubba, wuxuuna webigu noqonayaa soohdinta koofureed ee dhulka uu Talyaanigu haysto. sidaana waxaa buuggiisa ku qoray Robert Hess sanadkii 1966.
antonio sheki waxa uu hamuun u qabay isballaarinta talyaaniga, wuxuuna geed dheer iyo mid gaabanba u koray in dowladda talyaaniga ay la wareegto banaadir, isaga oo doonayay inuu kor u qaado sida aragtidiisu ahayd awoodda talyaaniga ee soomaaliya. sheki waxa uu ka caraysnaa habkii ganacsi ee tabarta darnaa ee ay ku shaqaynaysay sharikadda filonardi, wuxuuna turjubaankii filonardi oo ahaa carabkii aynu soo sheegnay ee saamaynta weyn lahaa ku beddelay carab uu isagu soo doortay. wuxuu kaluu dib ugu celiyey nin talyaani ah oo aan la jeclayn oo degganaa magaalada marka, kaas oo ahaa giacomo trevis. haddaan in yar ka hadalno, giacomo trevis waxa uu ku dhashay magaalada roma 19 bishii meey sanadkii 1869. wuxuu u shaqeeyey ciidamada militariga, wuxuuna ahaa teneti. marka uu ka tegay shaqada, wuxuu shaqo ka helay machadka bangiyada roma, Istituto Bancario Romano. sanadkii 1893 Vincenzo Filonardi oo Roma u jooga aasaaska sharikadda Filonardi ayaa shaqaalaysiiyey oo u diray Zanzibar si uu u hago xafiiska shirikadda iyo qunsuliyadda talyaaniga isaga beddelkiis. halkaas oo uu saaxiibo kula noqday Ugo Ferendi, Francisco Querini, Vittorio Bottego, Antonio Sheki iyo rag kale oo badan. kadib waxa uu u soo wareegay Muqdisho. wuxuu ahaa talyaanigii ugu horreeyey cagta soo dhiga magaalada Soomaaliyeed oo inta badan aan caddaanka soo dhoweyn, oo ahayd magaalada Baraawe. Oktoobar 1896 wuxuu u wareegay dhanka magaalo dekedda Marka. hal bil kadib waxaa la foole ka dhacay xasuuqii sahankii uu hogaaminayay Antonio Sheki ee uu markaas isagu aad ugu tiirsanaa. Sheki iyo asxaabtii labada markab ee Estafeta iyo Volturno ayaa la kulmay weerar gaadma ah oo aad loogu hoobtay. ma jirin qof talyaani ah ee degganaa magaalada Marka ka hor Trevis, sidaa darteed wuxuu is arkay isaga oo dhex fadhiya jawi colaadeed iyo meel laga necab yahay ninka cad. 9 bisha Febraayo sanadkii 1897 isla markii uu ka soo degay markabka Estafeta, waxaa Torrey ku weeraray nin Soomaali ah oo ka tirsan qabiilka Biimaal. ciidamadii galbinayay ayaa dilay ninkii Soomaaliga ahaa ee dilay sarkaalkaas. Trevis waxa uu u geeriyooday dhaawaca 3 maalmood oo xanuun badan kadib. waxa kale oo uu Sheki u diray ciidamo Jubbada Hoose si ay ugu qasbaan safarada Soomaalida inay badeecadahooda ka dejiyaan Baraawe halka ay ka dejin lahaayeen dekadaha Ingiriisku haysto ee Kismaayo iyo Goobweyn. joogitaanka Antonio Sheki waxa uu soo nooleeyey cabsidii Soomaalidu ay ka qabeen in waxa loo digay dam leeyahay ay tahay dhulkooda in la qaato. sidaa darteed ma seegin Soomaalida inay dareemaan in meesha ay wax ka socdaan. markuu Giorgio Milius oo ahaa maalqabeen reer Milaana ah sidoo kalena ahaa Sheki in adeerkiis uu booqday Banaadir sanadkii 1895 si uu u fiiriyo suurtagalnimada beerasho laga ganacsan karo. wax yar kadibna waxaa soo baxay hadalhayn ku saabsan beeritaanka suufka ee dhulka ku teedsan Webi Shabeelle. warshadaha ayaa si gaar ah u xiiseynayay suurtagalnimada in Soomaaliya laga beero cudbiga ama suufka. ugu dambeyntii Sheki waxa uu u muuqday inuu astaan u yahay isballaarinta gumaysiga ee dhulka Banaadir. intaana waxaa noogu dhammaaday qaybtii 3aad ee taariikhdii dagaalkii la foole ee dhex maray Talyaaniga iyo Soomaalida. qaybta 4aadna kala soco isla halkan oo ah channelka Rugta Hiddaha. taariikhdu dadkay bartaa inay dantood gartaane. taariikhdu dadkay bartaa inay dowladtuusan maraane.